بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo taariikhdu tahay 7 bisha Febraayo 2022 waxa magaalada Beledweyne ka dhacay shirka amniga dowlad goboleedka Hirshabelle oo shir gudoominaya madaxweynaha Hirshabelle Mudane Cali Guudlaabe Xuseen shirka waxa ka soo qayb galay saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida iyo ciidanka AMISOM qaybahooda kala duwan haddii aan lahaayeen ciidamada xoogga iyo booliiska iyo sidoo kale AMISOM militariga AMISOM iyo AMISOM police waxaana shirka looga hadlay caqabadaha amni ee gobolka ka jiro maalmihii u dambeeyay iyo marxaladaha hadda taagan ee u baahan in jawaab laga bixiyo sidoo kale waxaa lagu gorfeeyay in loo baahan yahay in cadowga deegaanka aad loogu sifeeyo maadaama ognahay inay dhaqdhaqaaqyo badan ee gobolka ay maalmihii u dambeeyay ama isbuucii u dambeeyay ay ka wadeen nabadiidka al-shabaab waxa la isla gartay in cadowga waajibaadkii awal laga gudanayo lasii laba jibaaro taasoo keenaysa in goobaha ay hadda ku sugu yihiin sida ugu dhaqsiyaha badan leh loogu xoreeyo marka operationkaas dib u xiraynta deegaanada iyo mid guud oo ah in baaritaanadii iyo awalba dhaqaaqyadii ciidanka ammaanka ay ku xaqiijinayeen degmada Beledweyne lasii laba jibaaro shirku wuxuu qabsoomay si wanaagsan waxaa halkaas loogu dhageystay warbixinadii saraakiisha amniga ee madaxweynaha ay ku siiyeen waxaa la isla gartay in shirka amniga uu sii socdo maalmaha madaxweynaha oo joogana lasii laba jibaaro howlgallada amniga haddii aan leedo gudaha iyo bannaankaba wuxuuna ku soo dhammaaday guul waxaan rajaynaynaa insha Allah maalmaha soo socdo in nawaaxiga dadka degmada Beledweyne ku nool ay arki doonaan iyo deegaanada ka fogba inay heli doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo ammaankii oo lasii laba jibaaray goobahoodana ay noqon doono meelaha ugu amniga badan deegaanada oo dhan hadduu Ilaahay waan rajaynaynaa operationadaasna inay mar dhow ay bilaaban doonaan waan ku ammaanaynaa guud ahaan saraakiisha amniga ciidanka AMISOM iyo ciidanka Soomaaliyeedba sida wanaagsan ay u shaqeeyaan iyo sida wanaagsan ee shacabka ay ula shaqeeyaan ay ugu dhimiriyaan waxaan annagana sidaas oo kale ka codsanaynaa shacabka inay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka ammaanka si aan annaga iyo ayaga hadda iskaashana cadawga aan ugu hortagno waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka degmada Beledweyne iyo guud ahaan gobolka Hiiraanba iyo guud ahaan reer Hirshabelle isku duubnaada cadawga aan iska dhicino ciidanka amniga la shaqeeya wada shaqeynteena ayaa ammaankeena ku jira meelaha amni ka jirin nabad iyo nolol kama jiri doonto nolol hadaa u baahanaa waa inaan nabad helnaa nabad hadaa weyn nolol ma heli doono marka waxa leeyahay amniga aan ka wada shaqeyno wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh